kulan kani oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska isla markaana ay fulintiisa ka taageereysay hay'adda UNFPA ayaa lagu qabtay magaalada Burco waxaana kulankani ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha qoyska Hinda Jaamac Xirsi iyo sidoo kale haween tiro badan oo iyagu ka faa'iideysanayay aqoon kororsiga muddada u socday kaas oo lagaga hadlayay caqabadaha ku xeeran haweenka iyo sidoo kale sida uga qayb qaadan lahaayeen xalinta khilaafaadka kala duwan ugu horeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadweynihii ka soo qayb galay dood cilmiyeedkaasi waxaana soo bandhigeen caqabadaha kala gedisan ee ku xeeran haweenka iyo sidii ay uga gudbi lahaayeen gabagabadii ku jirnaa tababarkii noo socday muddadii 3 cisho ah oo maanta ay 3 ku tahay tababarkaas oo ahaa xalinta khilaafaadka iyo sidii dumarku uga qayb gali lahaayeen siyaasadda taas oo inoo soo fududeysay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska oo inoo suurtagelisay hay'adda UNFPA haddii aanu imaado caqabadaha haweenka haysta siyaasadda qodobka koobaad waxa weeyaan dhaqan talabaad waa kalsooni la'aan gabadha haddii aanay kalsooni haysanin ama aanay iyadu isku kalsooneen oo aanay awoodaha nafteeda ku kalsooneen ma noqon doonto mid ka mid ah dhalista hamigeeda iyo hamiga ummadda ta saddexaad oo ah dhaqaalaha inta badan haweenku ma helaan cid dhiirigelisa ma haystaan inta badan haweenku meelaha ay ku kulmaan iyagu oo ay arrimahooda siyaasadda iyo mustaqbalkoodaba ay ku jaangooyaan haweenku inta badan maamulka guriga aad bay ugu wanaagsan yihiin haddii ay usoo dhaadhici lahaayeen hay'adaha iyo dawladaha iyo maamulkana waxaan aaminsanahay siday aasaaska guriga u dhisaan inay u dhisi lahaayeen saas kasta oo dalkan leeyahay annagu haddaan haweenay waa ka soo horjeednaa FGN-ka waxaanu leenahay dhalinta imika joogta odayaasha jooga islaamaha jooga duqayda waxgaradka intuba ha u tafaxaataan sidii loo joojin lahaa FGM-ka waanu haddii ay ka soo horjeednaa in laga hortago waa waajib ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Marwe Hinda Jaamac Xirsi Hinda Gaani ayaa sheegtay inay haweenku tiirdhexaad u yihiin bulshada isla markaana loo baahan yahay inay talada dalka qayb ka qaataan waana tan iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa waxaan oran karaa haweenku waa albaabka uu qarankani leeyahay waxaanu u baahan yahay in la siiyo gacan uu kaga mid noqdo siyaasadda dhisidii qarankan raggu markii uu dabad baxay meel kasta uu joogo Somaliland waxay waday xoolaha ee geela waday ee ariga waday ee awrta waday waxay ahaayeen haweenka sidaa darteed meel kasta oo ay haweenku joogaan waa tala qabeen baan leeyahay waxay xaq u leeyihiin inay siyaasadda dalka ka mid noqdaan si ay looga gudbo caqabadaha yaala iyo dhibaatada soo noqonaysa oo talo toosan oo togan ay u helaan sidoo kale waxay ka galaan bulshada reer Somaliland 60% maadaama oo ay yihiin bulshada ugu badan waxay xaq u leeyihiin waxa lagu xukumayo inay ka dhex muuqato baahiyaadka ay leeyihiin xalinta khilaafaadka waxaynu ka qaadan karnaa rool weyn baynu ka qaadan karnaa waayo wax weeyaan waa walaalka iyo ninkaaga iyo aabaha iyo adeerka Abdirahman Caqabada telefishinka Horyaal magaalada Burco